السلام عليكم ورحمة الله. سو dhawaada asxaabta qaaliga meel kastoo adduunka joogtaan. qisadayna maanta waxay ku dhacday wiil lagu magacaabo Maxamuud iyo Imaan iyo Maxamuud waxay ahaayeen masha Allah tabaaraka raxmaan family qurux badan. waxayna lahaayeen laba ciyaalo oo midna 7 sano jirto midna 4 sano jirto. masha Allah waxay ku noolaayeen Dubai. Maxamuud wuxuu ahaa masha Allah nin shirkad fiican ka shaqeeya oo lacag badan qaata ayuu ahaa masha Allah. yani Imaan waxay ku noolayd nolol qurux badan waana jecel xaaskiisa masha Allah. Imaan iyo Maxamuud say nolol qurux badan ugu noolaayeen masha Allah. waxa dhacday maalin inay shirkadii khasaaro ku yimaado ama shirkadaha dhanba waqtigaas oo maaragtay dadkii laga yareeyo lacagta eraatibkii ay qaadanayeen oo dadkii deyn lagu yeesho. markii saas dhacday waa 10 sano ka hor meelaha. markii saas dhacday waxa dhacday inuu Maxamuud yiraahdo Lubnaan tag guriyay ku leeyihiin Lubnaan iyo masha Allah waxay ku leeyihiin filo guriyo kale yani waxay ku leeyihiin masha Allah guriyo badan bay ku nool yihiin. wuxuu yiri maadaama halka guri ku leenahay Lubnaan tag aniguna shirkadda intaas oo dhan maaragtay aan la joogay ee lacagta fiican isiinaysay ma ka tagi karo imika waan la istaagayaa laakiin waxay isiin doonaan raatib yar oo aan badnayn. maadaama raatib yar oo badnayn isiinayaan adigu wadankeeni ku noqo. marka labaduba waa Lubnaaniyiin laakiin magaaladaasi ku nool yihiin Dubai. waxay sameeyeen inay ku noqoto Imaan wadankeedii oo Lubnaan markay tagtay masha Allah caruurteedii bay madaaris gelisay meeshii bay degeen oo masha Allah deeqadaamadaheedii iyo iska qabsatay oo waxaan ku leeyahay nolosheeda halkii ka bilaabatay. ninkeedina lacagtiisii buu soo dirayay. markii muddo joogtay bilo meelaha waxay isbarteen wiil lagu magacaabo Michael wuxuu ahaa nin modelistiya ayuu ahaa. waxay isku barteen meel moola. markay isku barteen wuxuu arkay gabadhan masha Allah dharkeedu wada qaaliga yahay shandada ay sidato say u dhalaalayso saacada ciyaalkeedu say u labis. wuxuu arkay inay dadkan ay tahay gabadh lacag leh. gabadhii buu u yimiday salkii bay isku barteen. markii gabadhii halka isku barteen ayaa waxay dhacday inay telefoonadii kala qaataan. telefoonadii markii kala qaatay markii telefoonadii kala qaateen wuxuu wataa daraajad ama mooto ayuu wataa iyaduna waxyaalahaas way ka heshaa. waana wiil qurux badan masha Allah xoog qurux badan hana qurux badnaado. wuxuuna isku sii sameeyay qaliin sixpack baa la leeyahay sidoo jirkiisa u dhisan yahay sidoo u qurux badan yahay masha Allah. waxa dhacday inay ku tiraahdo inuu ku yiraahdo mootadiisi markay aragtay ee ka heshay mootadii Ansuuli meelahaas soo warwareegayna ka waran hadii aan kugu soo warwareejiyo mootada meelahaas. waxay ku tiri maanta ma karo bari nooga dhig. okay baa yiri baridii ayaa markuu baridii uga dhigay ayaa baridii la isku yimiday. baridii markii la isku yimiday magaalada lagu soo wareegay. magaalada markii lagu soo wareegay hageeyo madaacim hageeyo bad maalintii oo dhan demelaba meesha ka qurux badan tahay ayaa maalintii oo dhan la geynayay. markii maalintii oo dhan la geynayay meesha ka qurux badan tahay ayaa gabadhan Amaanina ninkeedu waa nin shirkad ka shaqeeya sanadii sheegay shaqadiisa iyo maaragtay inuu suud xidhnaado waxba ugama dhaxeeyaan. gabadhan waxay rabtaa yani qof soo warwareejiya oo maaragtay isla boodboodaan. laakiin Maxamuud waa qof shaqadiisa markasta xidhan dhar rasmi ah yani oo badlada maaragtay suudiyo waxaas xidhan. ninkii bay ka heshay. ninkii markay ka heshay maalin kasta si bar isku la wareega. ninkii wuxuu ku yiraahdaa bahashan maaragtay taageedan daraajada mootada ay leedahay madaxa la gashto laasin waa inaan taasoo kale ku xidhaa hadii kale khatar baad galaysaa tii u soo iibiso. markasta waxaan ku yiri mool la tago wuxuu ku yiraahdaa kana waxana wuu qurux badan yahay waxana waa sidan waxana waa kan mad ka heshay soo qabsan bay tiraahdaa wax kasta soo qabsan bay tiraahdaa.
wuu ururiya isna hadday kaba tahay hadday saacad tahay hadday badla tahay hadday wax kasta xataa waxay u iibisay mooto daraajada naariya weeyaan daraajadan waaweyn mootooyinka waaweyn ayuu intuu arkay uu yidhi waaw baashan quruxda badan leh waaw waan ka helay way u iibisay qaalina way ahayd xog qaali way ahayd yacni ma dhahayo waan u baahanahay laakiin maanta oo dhan wuu ammaanayaa shaygii iyaduna waxay dhahaysaa maad ka heshay uu horey uga gadaysa laakiin lacagtan lagu iibinayo waa lacagtii ninkeedii maxamuud dibey ayuu joogaa waxaaba oga lacagtoodii bangiga ku jirtay ayuunbaa waxaan ku ihi la sarrafayaa isna gabadhiisa wuu ku kalsoon yahay waa gabadhu u jecel yahay maasha allah oo xoog isku jecel yihiin oo xoog u jecel yahay saas darteed wax kasta oy bangiga ka bixiso cidima weydiiso lacag badanna maaragtay rasiidkeeda wuu ugu soo shubaa bangigeeda markaas ninkii wuxuu noqdayba inuu bishto markii dambe wuxuu soo ragay inuu ku yidhaahdo wallaahi waxaan tegayaa america ayaan u haajirayaa u tahriibayaa dabcan saas darteed u ogow waayo reerkayga waxa ma haysano anagu waxa ma haysano marka waan tahriibayaa oo waxaan rabaa inaan america tago familigayga caawiyo markuu saas ku yidhina familigayga caawiyo ay ku tiri maya wax kasta anaa kuu samaynaya ha tegin reerkaygaan rabay guri inaan u iibiyo nolol qurux badan ku noolisi wax kasta reerkiina anaa u qabanaya ha ka warwarin reerkoogii bay oraday guri baa u iibisay guri ayay reerkoogu iibisay waxay ku tiri iska joog oo ninkii waaba la iska jeclaado waxays tiri america yuu kaa tegin isna wuxuu rabaa siduu lacagta uga qaadi lahaa markaa ninkan intuu camaliyadda aanu ka bogsan iyo waxaas ayaa maaragtay shirkaddii iyo wixii dib uga dhacay oo muu ka qaybgelin waqtigaas xayeysiintii iyo wixii kamuu qaybgelin waa yacni maaha yacni qof waaw caana oo de maaragtay lacag badan qaata laakiin waxa weeyaan qof maaragtay markaa la doortay oo ka qayb galay modelka iyo waxaas laakiin aan lacag waqtigaas lacag fiican aan haysan ama lacagtu qaatay waqtiga ay yarayn maadaama ku cusub yahay maaragtay waqtiga uu ku cusbaa saas darteed wuxuu samayn jiray markasta siduu iimaan lacag uga samayn lahaa ayuu isku dayi jiray meel kastaa la mudamari jiray ciyaalkeeda waxay kaga iman jirtay dadkan u shaqeeya ninkeedu markuu soo wacan waxay ku tiraahdo waan fiicanay alxamdulilah seetiin xaaladdeena alxamdulilah 2 sano markay sheekadii sidai ahayd ayaa wuxuu ku yidhi ninkeedii waxaan u noqonaynaa maadaama aanu halkan ku noolahay buu yidhi shaqadeedin halkan tahay soo laabta markuu ku yidhi soo laabta ayaa tiri mustaxiil inaan soo laabto lagama yaabo inaan soo laabto meeshanaan ka helay meeshanaan jecelahay mid labaad waxaa jiray habaryaraheed oon guursan oo islaam duqyaal waaweyna habaryarahay caawinayaa markaa halkan aan joogay aan ka helay maxaa dhacay buu yidhi shalay sodog ilaah marka dubay ka tegaysa anuu meesha kuma noolaan karayo meesha uma noqonayo ee lagu kari lahaa maanta maxaa isbedelay maya waxba ismay bedelin waxba ismay bedelin laakiin halkan aan ka helay familigeygana habaryarahayna cid maaragtay caawinaysa ma jirta marka iyada hooyadeed iyo aabaheed way dhinteen habaryarahay baan caawinayaa walaalna ma lahayn habaryarahay baan caawinayaa oon cid haysan may buu yidhi habaryaraha waad u tagtegi doontaa insha allah habaryaraha midalaad way badan yihiin waa 3 habaryaraha saaxiibadood iyagaa maaragtay isku camiraya soo noqo anigu caruurtayda iyo gurigayga la-aantood ma joogi karo dubay kuma noolaan karo keligay kaalay marka isaga dubay buu ku nool yahay isaga familigiisa kulli dubay bay ku wada nool yihiin waqti dheer baa meeshaasay ku koreen muddo ba joogeen marka waxaa dhacday inay ninkii markii waxa uu ku yidhi soo bax ay dubay u noqdaan dubay markay u noqdeen ayaa waxay u xiistay ninkii ay ninkeeda la khaayimi jirtay markay ninkii iska jeclaatay
ayaa ninku wuxuu isku soo sawiraa meelahaas isku soo sawiraya meelaha hoteelada xataa doon lacag haysa meelaha hoteelada meelaha qurquruxda badan waawga Instagram-ka la soo dhigaya Facebook-ka la soo dhigaya meelaha markuu isku soo sawiro ayaa wiil qurux badan uu yahay haddana maaragtay qaliin sameeyay oo jirkiisu dhisan yahay oo de wow xoog qurux badan waxay istir waa laga qaadi doonaa ninkii la'aantiiba ma joogi karto ninkeeda umaba muuqdaba indha aan ninkii lahayn maba laha wanaagti waxay samaysay inay ninkeeda la hadasho oo ku tiraahdo maxamed xabiibi waxaan rabaa inaad nin la yiraahdo Michael oo habartay saaxiibteed dhashay aad keentid waa dad masaakiina waxba ma haystaan waa dad faqraa ah habartay ba iga dalbatay habartayna hadalkeeda ma diidi karo waxay igu tiri ninkaaga la hadal oo ha caawiye markay hadalkii ka daweyda ku celisay tiraa waasaan ninkan waa miskiin habartay ba iga dalbatay saaxiibadeed baa dhashay ayuu ku yiri okay waxaad samaysaa bay tiri waxaad ku qortaa maxal bay lahaayeen dukaan bay lahaayeen dukaankeena ku keen dukaankeena yani ka dhig qof dukaankeena ka shaqeynaya oo sharciga ugu soo saar ciqaamada deganaanshaha dukaankeena qof inaga inoo shaqeeyo laakiin banaanka ka shaqeysto marka wuxuu ka shaqeeyaa maaragtay jimka iyo waxaas ayuu dadka maaragtay ayuu wuxuu ka shaqeeyaa meelaha jimka iyo waxaas ka shaqeeyaa oo bishii maaragtay ayuu lacag ka qaadanaya gurigaaga kugu imanaya ilaa bil maaragtay intaad maaragtay aduubanayso jirkaagu dhismayo ayuu ku baraya laakiin isagu jirkiisan wuxuu ku sameeyay qaliin sababtoo maadaama qaliin ku sameeyay yani jir qurux badan buu yeeshay maaha jirtii misaan ka dhigay laakiin dadka saas ugu sheekeeya oo meelaha Instagram-kiisa soo dhiga oo wuxuu u sheegay inuu jimka ka shaqeeyo oo dadka maaragtay u baro oo sidiiba uu ku shaqeysan doonaa saas uu ku shaqeystaabay ninkeeda u sheegtay keen adigu markiisa dambana banaanka ka shaqeysto hay buu yiri ninkii uu keenay dukaankii ayaa lagu keenay dukaanka ayaa lagu keenay magaca dukaanka lagu keenay sharci baa loo sameeyay markii ciqaamad loo sameeyay dukaankii magacii lagu keenay ayaa markuu laba cisho meelaha dukaankii joogay ayaa markii dambe banaankiisa ay iska aaday ninkiina wuxuu ku yiri maxamuud wuxuu ku yiri lacagta marka lagu soo siiyo raatibka dadka u shaqeynaysa lacagta soo siiyaan waxaad samaysaa bangigayga ku soo shub aniga lacagta ii dhiib may lacagta iiga dhiib gacanta bangigaaga kugu soo shubaya si aan loo ogaanin inaad dukaankayga ka shaqeynin oo meelaha ka shaqeysato ay wax kasta sax u noqdaan oo inaad anaga noo shaqeyso la moodo marka bishii lacagta wuxuu u dhiibi jiray ninkan wuxuu ugu shubi jiray akoonkiisa saasay sheekadu ku socotay muddo laakiin isagu waxa la wuxuu qabto ma jirto ma shaqeeyo guri markuu Dubai yimiday amaani waxa uu qaaday guri bay u kireysay shirkad bay u kireysay shirkadii markay u kireysay halkaas ku nool yahay biilkiisa wax kasta iyada bixisa haddana waxay u iibisay gaari bay u iibisay gaari qurux badan oo wareera ay u iibisay yani lacagtiiba isaga baa lagu shubaa maxamuud waxa ma oga talabaad iyadoo shaqayn jirtay lacagteedina ha iloobin lacagteedina ninkaas bay ku shubtaa يعني لعقتي محمود هي لعقتي مايكل باقات واحد هذي سيدي لو السعودي سيدي لو السعودي مركو نينكيدو مقن yahay ciyaalka intii kaga tagto dadka shaqaalada ah ay ninka gurigiisa ugu tagtaa cuntaha u kariso halka waxaan ku leeyahay hala shito ninkaasi maalin oo dhan la nooshahay markuu ninkaygu soo rawaxayna ka timaada ama magaalada la soo wada wareega ninkana lacag uu ka sameeyaa isagu wuxuu jiraa 25 iyadana waxay jirtaa iyadu way ka weyn tahay marka in badan bay ka weyn tahay waxay jirtaa 43 wuxuu sameeyay inuu ku yiraahdo waxaan rabaa inaan furto horta meene markaadki iyo wixii ay u iibin jirtay shirkadii alaabta ay u iibinaysay ayaa
markii dambe de ilin lacagtii way dhamaanaysaa way yaraanaysaa nin gaari loo iibinayo guri loo iibiyey guryo loo kireeyey maalin kasta waxaa la taagan yahay meelaha ugu qaalisan hodhalada ugu qaalisan iyo ma aragtay meelaha ugu qalqaalisan ayaa la tegayaa wixii wuu dhamaanayaa wuxuu ku yidhi wuu ka xanaaqay horta waxay u iibin jirtay ayaamihii dambe shirkado ma aragtay shirkado koobiya ay u iibin jirtay markuu arkay nin u iibinayso dhar koobiya iyo waxyaalaha uu xanaaqay wuxuu yidhi maxaa waxay ku tiri insha Allah markuu wadacu hagaago wax kasta aan kuu samayn doonaa laakiin imika waad ogtahay inaan lacag si ay dhamaatay oonan lacag haysan laakiin waan kuu samayn doonaa wax kasta ninkii halkan abu ka xanaaqayba naftaaba ka baxdayba waa maxay shirkadahan koobiga iyo waxyaalaha la keenayso xanaajiyay markii dambe wuxuu ka dalbaday $500,000 buu ka dalbaday